indhawaalaba waxay dunidu xusuldub ugu jirtay sidii loo xakameyn lahaa korarka kulaylka cimilada oo ay khubarada saynisku ku tilmaameen inuu sabab u yahay gaasaska loo yaqaan greenhouse-ka oo uu ka mid yahay gaaska carbon dioxide-ka oo ay sii daayaan baabuurta iyo warshadaha waaweyn ee dunida. haddaba si looga hortago dhibaatooyinka uu sababi karo kulaylka cimilada ee sii kordhaya, waxay culimada adduunku soo ikhtiraaceen tallaabooyin lagu xakameynayo gaaska carbon dioxide-ka oo ay u aaneynayaan inuu door weyn ka ciyaaro korarka kulaylka cimilada adduunka. dalka Shiinaha oo hadda lagu wada inuu yahay wadanka inta badan sii daaya carbon dioxide-ka ayaa qaaday toddobaadyadii lasoo dhaafay tallaabo lagu xadidayo arrintaas, waxaana shirkadda lagu magacaabo Shahzaan Hashi soo bandhigtay qorshe ay ku horumarinayso basas waaweyn oo ku shaqeynaya elektriga. basaskan ayaa sida ay sheegtay shirkaddani sidoo kale yareyn doona cidhiidhiga wadooyinka iyadoo ay suuragal noqon doonto in baabuurta kale ee isu gooshaysa ay ka hoos dusaan basaskaas. tallaabadan ay qaadeen Shiinaha ayaa noqon doonta mid wax weyn ka tarta sida ay ku waramayaan khubarada ku hawlan dhismaha basaskan cidhiidhiga wadooyinka iyo yareynta qiiqa carbon dioxide-ka ay sii daayaan baabuurtu. dhinaca kale waxay basaskani qaadi doonaan ugu yaraan 1200 oo qof, taas oo u sahlaysa dadka inay si sahlan ku tagaan goobahooda ay u shaqo tagayaan iyagoo aynan dhicin wax xanibaada. khubarada dhisaysa baskan oo ka warbixisay qaabka uu u dhismayo baskan ayaa tilmaamay in baskan yeelan doono system kala haga baabuurta ka hoos dusaya iyo baskaba si looga fogaado inay yimaadaan shilal ka dhaca baska hoostiisa marka uu leexanayo ama markii uu soo gaaro isgoosyada. baskan ayaa haddii uu hirgalo wax weyn ka tari doona magaalooyinka waaweyn sida London, Beijing iyo São Paulo oo ugu yaraan in ka badan 10 milyan oo baabuur ay maalin walba isku garbiyaan wadooyinka waaweyn ee dhexmara magaalooyinkaas. sida ay tilmaamayaan khubarada dhisaysa baskan, waxaa ku bixi doona kharash la-eg 10% kan ku baxa dhismaha sabwayada ama underground-ka dhulka hoostiisa mara. basaskan oo sida lagu wada balacooda uu noqon doono 6 mitir joogooda uu noqonayo 4 badh ayaa waxa ay dhimi doonaan 30% ciriiriga jidadka, iyadoo sida lagu wadana basaskani hawshooda ay bilaabanayso sanadkan gudaheeda laguna soo afjari doono muddo 1 sano ah. Cumar Cabdi Afey, Universal TV, Oslo, Norway.